بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داوديال برنامج كان waxaan idinkugu soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee duqeynta Israa'iil ay ku hayso wadanka Iran waxaa soo baxaysa faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan goobaha la duqeeyay iyo waliba sidoo kale saraakiil hor leh oo la xaqiijiyay geeridooda waxaana ka mid ah taliyihii guud ee ciidamada waxaan kaloo idin soo gudbinaynaa hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei oo ka hadlay duqeyntan Israa'iil ay qaaday iyo jawaabta ay bixin doonaan sidoo kale afayeen u hadlay militariga wadanka Iran ayaa wacad ku maray in Mareykanku uu dareemi doono xanuun isla markaasna qayb uu ka ahaa weeraradan waxaan kaloo idin soo gudbinaynaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo la sheegay in lagula cararay dhufays dhulka hoostiisa iyadoo xilligan barnaamijka aynu wadnayna warar kala duwan ay ka soo baxayaan dhanka Israa'iil oo ku aadan diyaaradihii shirkadda diyaaradaha ee Israa'iil in loo qaaday wadamo dibadda ah waxa ka mid ah xitaa diyaaradii qaaska ahayd ee Netanyahu waxaan kaloo eegi doonaa goobaha la duqeeyay xarunta nuclearka Iran iyo waliba saldhigyo lagu soo waramayo in la duqeeyay iyadoo duqeyntii saddexaadna imika ay socoto waxaan eegi doonaa xaaladan iyo wararkii ugu dambeeyay iyo saraakiisha Iran laga dilay ilaa hadda inta la xaqiijiyay gudaha Israa'iilna waxaa soo baxay warar kala duwan oo la xiriira in xaalad degdeg ah lagu dhawaaqay isla markaasna Israa'iil waxay sheegaysaa inay filayso maalmo adag inay soo socdaan macluumaadkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan barnaamijkan idinkugu haynaa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah maxamed cadde oo macluumaadkan iyo wararkan isha ku haya isla markaasna xaaladda ugu dambaysa la socodsiinaya ayaa qadka ku jira maxamed bal horta intaanan u imaan wararka kale dhanka Iran ilaa hadda maxaynu war ka haynaa gaar ahaan hogaamiyaha sare ee Iran hogaamiyaha ruuxiga ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay wadankiisa ka gashay dambi aad u weyn wuxuuna daboolka ka qaaday in sharta ay ku tala jirto Israa'iil oo ay ku weerartay xaafado ay degan yihiin ay muujinayso sida ay Israa'iil shar u tahay waxaana waajib ah inay Israa'iil karti u yeelato in ay sugto ciqaabta soo socota insha Allah ayuu yiri waxa ay la kulmi doonaan buu yiri gacanta adag ee ciidanka qalabka sida ee wadanka Iran waxayna noqon doontaa buu yiri jawaabtaasi mid culus qaar ka mid ah taliyayaasha iyo saynistiyaasha ayaa uu yiri waa ay shahiideen oo weerarkaas ay ku dhinteen kuwii bedeli lahaana waxa ay bilaabayaan dhawaan inay waajibaadkooda la wareegaan dambiyada ay Israa'iil gashay ayaa waxa uu afmeeraya xanuun iyo mustaqbal aad u xun oo Israa'iil ay la kulanto iyo waxa hubaal ah in mustaqbalkeedu uu noqon doono mid afka ka xiran waa garta waan u soo laaban doonaa Iran wararkeeda maxamed kale laakiin xagga Israa'iil waxa lagu soo waramayaa xaalado adag inay jiraan iyo cabsi badan inay bilaabatay maxaynu ka haynaa wararka ugu dambeeya la xiriira Netanyahu iyo xubnaha golaha wasiirada raadiyaha militariga Israa'iil ayaa ku waramaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca Israa'iil Katz in ay weerarada Iran lagu qaadayo ay kala socdaan xarunta dhexe god dhulka hoostiisa oo aad loo adkeeyay janaalka 12aad ee Israa'iil ayaa sheegay go'aanka weerarka lagu qaaday waxaa qaatay Netanyahu iyo Katz 3 maalmood ka hor waxaana muuqata in weerarkaasi oo hadda socdo waa gartay Iran aan dib ugu laabano afayeenka militariga hadalka uu sheegay maxamed bal hadda inooga waran weerarka Israa'iil ku soo qaaday Iran waxaa ku taageeray dowladda Mareykanka dowladda Mareykankana qiimo weyn ayay ugu fariisanaysaa taageeradaas ay Israa'iil ku weerartay inay Iran gudaheeda weerarto waana waxaana waajiba in naga fisho jawaab aad u kulul
oo ka imaanaysa ciidamada qalabka sida ee waddanka Iiraan ayuu yiri afhayeenku. waa garta isla Iiraan intaan waan usoo laaban doonaa Israa'iil dib aan ugu laabanno warbaahinta Iiraan warbaahinta Israa'iil aan iraahdo waxay ka hadlaysaa saraakiil ka hadlaya Israa'iil waxa ay filan karto maxaa ka mid ah waxyaalahaas warbaahinta rasmiga ah ee dowladda ayaa soo xiganaysa oo sheegaya waxa ay noogu fariisan doontaa qiimahaas inaan bixino diyaar ayaan u nahay sababtoo ah Iiraan ma doonayno inay samaysato bam nuclear ayuu yiri janaalka 14aad ayaa asna waxa uu soo xiganayaa sarkaal military oo sheegaya Iiraan in ay jawaabi doonto haddii dadkeenu ay kala dambeyn iyo adkaysi muujiyaan waxyeelada waxay noqon doontaa mid aad u yar waa warka ay iskula talinayaan sida idaacadaha rasmiga laga baahinayo waayo maxamed Israa'iil inteena ka bixin sarkaal Israa'iiliya ayaa waxa uu ka hadlayaa sidoo kale Israa'iil waxay filanayso arrinkaas sidoo kale bal hadii noo faahfaahay sarkaalkan waxa uu leeyahay Israa'iil waxa ku soo wajahan maalmo aad iyo aad u adag Iiraan iyadoo ay ka jawaabayso weerarka aynu ku qaadnay janaalka 14aad ayaa waxa uu soo xiganayaa nin sarkaala waxa uu yiri waxaan gaarnay guulihii ugu waaweynaa ee ebed aanan hore loo arag waxaan dharbaaxyo xoog leh ku dhufanay hogaankii militariga Iiraan iyo hogaankii ciidamada kacaanka ee Iiraan waxayna ahayd buu yiri weerarada aan qaadnay kuwo fog oo meelo badan aan u qorsheynay in aan weerarno ilaa iyo maalmaha soo socda waxaa jiri doona buu yiri ayaamo adag ayaa naga horeeya Iiraan dhankeedana waxaan ka filaynaa jawaab waa gartay waa hagaag Iiraan goobaha la duqeeyay marka laga tago xarumaha xasaasiga waxa kamid ah goobaha rayid ah oo kaabayaasha rayidka maxaynu ka ognahay goobahaas telefishinka waddanka Iiraan ayaa ku waramaya in Israa'iil ay bartilmaameed ka dhigatay agagaarka warshadda batroolka lagu sifeeyo Tabriz ee ku taala waqooyiga galbeed ee Iiraan janaalka 13aad ayaa laga soo xigtay ila ku dhow oo sheegaya in weerarkii afraad oo duqeynta ah ay Israa'iil la beegsatay Tabriz iyo Karmanshah iyo kaabayaal lagu sameeyo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wararkaasna waxaad moodaa inay yihiin kuwa isu soo taraya waa gartay qasaaraha ilaa hadda la xaqiijiyay waxaynu ka ognahay iyo sidoo kale xubnaha lagu dhawaaqay kamid ah ciidamada iyo saynisyahanada Iiraan laga dilay maxamed telefishinka Iiraan ayaa ku waramaya 5 qof oo rayid ah in ay dhinteen 20 kalena in ay ku dhaawacmeen Nakmak deegaanka la yiraahdo ee bariga Tehran natiijadana waxay ku timid duqeynta xagga cirka ee Israa'iil waxa dardar galay baa leeyahay dagaalka Israa'iil ee ka dhanka Iiraan waxaana lagu waramay in lagu dilay saraakiil sarsare oo Iiraaniyiin ah oo uu ku jiro oo ay ku jiraan taliyayaal waaweyn iyo saynistiyaal xagga nuclearka sida laga soo xiganayo ila ku dhow Iiraan Major General Hussein Salamani oo ah abaanduulaha ciidamada ilaalada kacaanka ayaa kamid ah dadka la dilay oo duqeynta lagu dilay kadib markii la beegsaday xarunta dhexe ama taliska ciidamada ilaalada kacaanka weerarkan ayaa waxa uu noqonayaa weerarkii khaarijin lagu khaarijiyo mas'uuliyiin midkii ugu sareeyay ee militariga Iiraan lagu qaado muddo sanad ah inta waxa dheer in la dilay ayagana laba scientist oo xagga nuclearka ah Maxamed Mehdi Tehranji iyo Farayuddin Abbasi oo labadaba ah niman scientistiyaal ah waxaana lagu waramay in weerarka saaka aroortii ay Israa'iil qaaday
guryaha ay duqeysay inay guryahooda ku jireen. labadan scientist ayaa labadaba waxaa la sheegay in ay barnaamijka nuclearka Iran ay laf dhabar ka ahaayeen muddo badanna ka shaqeynayeen sida warbaahinta Iran ay sheegtay. warar kale oo soo baxay ayaa tilmaamaya in Major General Ghulam Ali Rashid oo ah taliyaha khatam al-anbiya oo ah dhisme oo Tehran ku yaala ayaa asna weerarka naftiisa ku waayay. duqeyntan ayaa waxaa laga yaabaa inay xiisadda cirka ku sii dhajiso gobol awalba xaalkiisa oo aad iyo aad u qasnaa sida ay lafagurayaasha hadalka u dhigayaan. waa gartay maxamed waan falaqayntan u gudbaynaa laakiin sidoo kale war ay hadda soo toortay wakaaladda wararka ee Faris waxay xaqiijinaysaa in la xaqiijiyay geerida taliyihii guud ee ciidamada waddanka Iran. barnaamijkan ka horreeyay degdeg ahaa waxaan ku sheegnay inagoo soo xiganayna warbaahinta Iran qaar ka mid ah in uu nool yahay, laakiin hadda waxaa la xaqiijiyey si rasmi ah Major General Mohammed Bakhari in uu dhintay isla markaasna duqeymihii ku dhintay. wakaaladda wararka ee Faris ayaa warkaasi soo tuurtay haatan. wararka kale ee degdega soo dhacay waxaa ka mid ah hawada Iran sida halkan aad ugu jeedaan daawadayaal gebi ahaanba waxaa laga mamnuucay diyaaradaha. sidoo kale waxaa iyana ku dhawaaqday hawada inay xirtay Ciraaq. calaamadahan aad u jeedaan diyaaradaha waa diyaaradaha hadda xilligan maraya gobolka bariga dhexe marka laga tago Iran iyo Ciraaq. inta kale hawada way furan tahay wadamada kale, laakiin way bannaan tahay Iran sidaad aragtaan. xaalado colaadeed iyo dheelo colaadeedna way jirtaa. sidoo kale wararka dhanka Israa'iil laga soo gaaraya waxaa ka mid ah boggan la yiraahdo flight radar oo la socda macluumaadka diyaaradaha ayaa waxa uu sheegayaa goor dhaweyto diyaaradda la yiraahdo magaceeda Zion Wing oo ah diyaaradda khaaska ah ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inay ka duushay magaalada Tel Aviv garoonka ku yaala Ben Gurion. waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo warbaahinta Israa'iil ay sheegayso shirkadda diyaaradaha ee Israa'iil diyaaradaha ay lahayd in loo qaaday dhanka Qubrus cabsi weyn ay jirto. warkaasna waa wararka hadda ugu dambeeya. dhanka Iran sidoo kale war hadda ka soo dhacay wuxuu sheegayaa in sidoo kale dhaawac uu soo gaaray la taliyaha hogaamiyaha sare ee Iran Ali Shamkhani oo isna la sheegay in isbitaal la dhigay. xaaladiisa waa laga dayrinayaa sida wararku ay sheegayaan, dhaawaciisana aad buu culus yahay. waaya wararka degdega wixii soo kordha waan u imaan doonaa. maxamed baraha bulshada marka hadda qiimeynay dhanka Iran waxyaabaha aadka loo hadalhaya waxaa ka muuqata in la leeyahay Iiraaniyiintu waxay u qaateen dhab warkii ka soo yeeray dhanka Mareykanka ee ku aadanaa in weerar uusan dhacayn inta ka horeysa maalinta Axadda oo wareegii lixaad lagu ballansanaa. sidaas darteedna ay dhacday in hogaamiyaashan ay isdhigtaan. ma taasaa loo sababeyn karaa oo ahayd in wadahadalladaasi ay keeneen in la beegsado, mise sida si guud baa dayac u dhacay, mise waa Iran waa la dhex galayoo basaasiin baa dhex gashay? sidee Israa'iil ugu suurtageli kartaa inay beegsato hogaamiyaashan muhiimka ah, taliyihii ciidamada guud, taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iran iyo xubnahan muhiimka ah ee saynis yahanada? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. marka ugu horeysa shacabka la dhegeysanaya Soomaaliyeed waa inay fahmaan sida xukuumadda Iran ay u shaqeyso. Iran waxaa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. taliyayaasha waaweyn, madaxda waaweyn iyo cid allaaliya ciddii mas-uuliyad haysa waxa uu la mid yahay sida dadka caadiga ah. waxa uu nool yahay nolol caadi ah. dadka ayuu ku dhex jiraa, dukaamada wax ka gataa, taksiyadu raacaa, jidadka ayuu maraa. sidaas iyadoo ay jirto waxa weeye waxa ay nidaamkan ku sheegaan inay tahay mutawaadicnimo, inay yihiin dad u jajaban diinta. intooda badanna waxaa lagu sheegaa in ay culimo yihiin. weerarkan markay Israa'iil salaada subax aroortii ay ku soo aadinayso macno weyn ayaa ka dambeeya. waxa weeye xog ayay haysataa. ilaa iyo 70,000 oo Iiraaniyiin oo waxaa jira Yuhuud ah. Israa'iil muddo badan ayay basaasiin ku dhaxlahayd mujtamaca Iiraan gudihiisa. ma aha oo kaliya in ay joogaan jaaliyad Yuhuud ah, waxaa kaloo jooga jaaliyado waxaa kaloo jooga
dad iiraaniyiina oo calmaaniyiina, waxaa kaloo jooga dad cirqiyo kale ah oo la shaqaysta wadamada ajnabiga ah, oo ay ka mid yihiin bolijiska, ay ka mid yihiin, oo ay ka mid yihiin dad badan oo tirsanaya in caburin lagu hayo. intaa marka laga gudbo, tallaabadan ay dowladda Israa'iil ay qaadhay, dadka khabiirada ee arrimahan la socda waxay leeyihiin waa bilowga dhammaadka Israa'iil. tan kale oo ayadan aan meesha ka maqnayn oo iiraaniyiinta laftirkooda ay xuseen waxa weeye gacanta ku dhex jirta weeraradani waxa weeye oo garabka siisay waa maraykanka waa inuu fishaa xanuun aad u weyn. dhanka dayacaadda waxa weeye iiraan war kama maqasho maraykanka iyo Israa'iil toona. waxa jira waxa weeye diyaaradahan weerarka qaaday qaar badan waxaa lagu sheegay wararka hordhaca inay yihiin diyaarado aan duuliyaha lahayn oo drones ah. su-aasha la isweydiinaya waxay tahay droneskan xaggee ka soo kaceen? ma Israa'iil bay toos uga yimaadeen mase waxay ka yimaadeen meel kale? diyaaradahan weerarka geystay ee dhibaatada geystay waxay ku sifeeyeen wararka hordhaca inay yihiin drones. waxaa diyaaradda noocan oo kale ah lagu dilay madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas booqashada ku marayay booqashada ku joogay Iiraan markii la caleema saarayay madaxweynaha waddanka Iiraan. weerarkan waa la filayay, laakiin inuu sida u soo degdegayo cid walba ayaa ogsooneyd wararka la socota 24 saacadood ee lasoo dhaafay mas-uuliyiinta ka hadlayay iyo sida hadalka loo dhigayay. waxaana muuqata sida ay khabirada qaar hadalku dhigayaan oo ay fogeynayaan inay bilow tahay dagaalka saddexaad ee adduunka. ayatullah cali khamenei hogaamiyaha ruuxiga iiraanna siduu hadalka u dhigay waxa weeye Israa'iil waxa ay daboolka ka qaadhay in ay isu dhammayso waxa cawaaqib ay filan doontana waqtiga ayaa sheegaya. waa gartay, waa yahay. dhinaca kale aynu ka eegno saynisyahanadan la beegsaday, hadda waxaa la sheegayaa inay ka mid tahay xarunta la weeraray, xarunta la yirahdo Natanz oo ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan. sidoo kale waxay leeyahay Tartiz xarunta la yiraahdo ayana nuclearka ayaa la beegsaday. weli waxa la dhaawac weyn baa gaaray baa leeyahay xarunta Natanz sida ay leedahay wakaaladda wararka ee Iiraan u faafisa wararka ee IRIB la yiraahdo. raggan saynisyahanada Maxamed, Iiraan haddii laga dilay dhaawac intee lag bay u tahay in xarumihiina la weeraray nuclearka, saynisyahanadiina la beegsaday? Israa'iil muddo badan ayay weerar gaadma ah oo khaarijiin ah ku waday saynisyahanada Iiraan, laakiin tan waxa ay tahay mid isbeddel weyn ku keenaysa sida hadalka loo dhigay gobolka Bariga Dhexe. haddii ay run tahay oo la beegsaday xarumaha nuclearka waxa weeye waxaa dhalanaya cawaaqib ayaa dhalanaya. waxaa laga yaabaa inay suntaas dadka ku agdhow ay aafayso. tan kale oo iyadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye ninka la khaarijiyey ee labada scientist ka mid ah ee la yiraahdo Faryodin Abbasi, waraysi uu bixiyey dhowaan ayuu waxa uu ku sheegay in lagu wargeliyey inay Israa'iil bartilmaameed ka dhiganayso oo ay rabto inay qaarijiso. waxa uu ku jawaabay, aniga nin waayeel ayaan ahay, shaqadeyda waa gutay, waa qabsaday, dhalinyaradii aan soo saarnay oo aan wax barnay ayaa shaqada wada oo shaqadii la wareegay. waxaana cad in dhinaca Iiraan ay mar horeba tileen jiilka labaad ee shaqadan sii wadi kara. tan kale oo aydan aan meesha ka maqnayn waxa weeye waxaa jira wadamada reer galbeedka waxay aaminsan yihiin haddii weerar lagu qaado hoggaanka oo hoggaanka la dilo in wax walba ay kala daadanayaan oo isku dhex yaacayso. waxa weeye marka la fiiriyo sida ay ayaga qabaan. laakiin Iiraan dharbaaxyo marka aad u geysatid, dharbaaxyooyinkaas adkaysi ayay u leeyihiin. marka ay taliyayaal magacaabayaanna taliyayaal kale oo waxaa jira yaryar
oo ku daba xiga oo la shaqaynaya oo haddii ay wax dhacaan shaqada la wareegaya cali khamaani oo ah hogaamiyaha ruuxigana waa sheegay wax weyn ma aha nimankan waa shahiideen raggii bedel laha ayaa la wareegaya laakiin cabsida iyo naxdinta hadda dhinaca kale ayay taallaa mana noqon doono sida israa'iiliyiinta hadalka u dhigayaan dagaal dhowr maalmood socda awee dagaalkan siduu u bilowday weeye ilaa iyo israa'iil ay kasoo afjarayso iiraan intay kasoo afjarayso israa'iil su-aasha hadda la isweydiinaya ayaa waxay tahay maraykanku markuu arko xanuunka gaaraya shacabka israa'iil sababtoo ah gantaalada iyo waxa la soo ridi doono ma aha wax anaga aan qiyaasi karno waxaan aqoon u leenahay maaha laakiin khabiirada arrimahan la fagura ayaa waxay leeyihiin haddii 10,000 saacadiiba oo gantaal la soo rido oo 24 saac ay socoto waxa weeye waxa dhacaya waxa weeye dad badan ayaa ku dhimanaya waan aragnaa anaga maalin walba idaacadda ku aragnaa 2 sano ee lasoo dhaafay ayaan arkaynay in falastiiniyiinta rayidka ah sida israa'iil u roynayso markay arkaan dhiigga daadanaya dadka israa'iiliyiinta ee ku dhimanaya oo guryahooda ku dumayaan sida falastiiniyiinta loogu dumiyey falcelinta ay samayn doonaan wadamada Yurub waxaa laga yaabaa dagaalkan in uu ballaarto haddii uu dagaalkan ballaartana waxa uu noqonayaa baa leeyahay dagaalka saddexaad ee adduunka waa gartay waxaa hadda hadlaya mas-uuliyiin ka tirsan Israa'iil wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz wuxuu leeyahay waxaan filaynaa weerar gantaal ah iyo drones Iran ka yimaada laba mas-uul oo kale oo warbaahinta Israa'iil ay soo xigteen waxay leeyihiin suurtagal waxa ah saacadaha soo socda jawaab inay ka timaado dhanka Iran laakiin intaynu barnaamijka ku jirnaa war kale soo dhacay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay inuu difaaci doono Israa'iil warkaas maxaa loo fasiran karaa Maxamed Israa'iil inuu difaaci doono haddii uu sheegay hore waxay u cadeynaysaa in uu la ogaa waxa ay samaynayso difaaciisa hadduu difaaci lahaa iyo haddii kaleba Iiraaniyiinta dhinacooda waxay yiraahdeen Mareykanka ayaa lug ku leh xanuun weyn ayaana gaari doona waan arkaynaa laakiin meeshan waxa murugada leh ayaan darrada ay tahay waxa weeye wadamadii carabta ah ee malaayiinta dollar bixiyey in wadamadooda ay duqeyn xoog la ku dhici doonto oo fadeexa ku keena lacagtii iyo kharashkiina waa ka baxday wax laga dhageystana lama arko haddana waxaad moodaa dagaalka inay qayb ka noqonayaan waxaana ayadana sidoo kale ayaan darro ah in dagaal hadda uu gobolka bariga dhexe ka bilowdo xilli ay jirto waxyaabo fara badan oo macaashada caalamka oo dhan ay kor u kacayso oo ay ka mid tahay ascaarta saliidda $100 ayay ku dhowdahay dagaalkan hadda lagu dhawaaqay ee la galayna waxaa la hubaa sida ay khabiirada hadal ku dhigayaan in ay $200 ay gaari karto macnaheedu waxa weeye aniga iyo adigayna saameynaysaa oo aanan dagaalka ku jirin sababtoo ah baabuurkaaga marka aad ka haysato oo goobta stationka baabuurka shidaalka looga shubto aad tagto waxaad arkaysaa shidaalka oo sicirkiisa isbedelayo waxyaabaha daruuriyaadka ee dibadda laga keeno dhanna qaali ayay noqonayaan waxaan ayadana meesha ka maqnayn oo Iiraan laga yaabaa in ay boorka ka jafto oo ay kiciso kooxa ay hore u xakameynaysay oo Ciraaq jooga iyo Xisbullah iyo Xuutiyiinta dagaalka noocan oo kale ana sida khabiirada hadal ku dhigayeen barnaamij gaar ayaan ka sameynay Iiraan ciidankeeda badda siduu dagaalka la filayo oo hadda bilowday marka anaga aan duubaynay haddii labada ciidan isku dhaco haddii ay ahayd hadda dagaalku waa bilowday waxaa muuqata in ay isticmaali doonaan doomo aad u yaryar oo dheereeya oo qaarkood ay wataan gantaalo khatar ah gujisyo miinooyin iyo wata torpedo ama gantaalada ka dhanka ah maraakiibta rabiya sir dagaal hadduu bilowdo waxaa la yidhi dagaal gundaha uu ka dhashaa Mareykanka waxa uu noqon doonaa mid ka mid a dagaalada ugu kulul ebed ayaa kusoo food yeeshay waxaana muuqata ayaamaha soo socda ayaa noo kala cadaynaya wax dhaca waa gartay war kale oo hadda soo dhacay waxaa leeyahay nin ka mid ah injineerada
qaabilsanaa nuclearka oo la yiraahdo Axmed Riza Zulfakhari ayaa isna ka mid ahaa dadkii lagu dilay weerarkii caawa dhacay. Iran waxay kaloo leeyahay waxay wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka dalbatay Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay inuu qaado tilaabo degdeg ah oo la xiriirta weerarka Iran ay ku qaaday xarumaha kala duwan. waayahay madaxweynaha Mareykanka oo Fox News ay soo xiganaysa isna wuxuu leeyahay Iran ma ogolaan karno inay haysato hub nuclear ah, waa inay timaada miiska wadahadalka. weli waxaa naga go'an in ay dhacaan wadahadaladii la qorsheeyay maalinta Axadda ah Iran wufuudda ka socota iyo wufuudda Mareykanka. ma laga yaabaa Iran inay Maxamed wadahadaladaas tagto? anaga ma ishaafalateyn karno, laakiin xajmiga waxa dhacay marka la fiiriyo, mas-uuliyiinta dhinta marka la fiiriyo, Mareykanka asagaa lugihiisa god ku qotay. Iran uma socoto, uma badna sida mandiqa ah in ay arrimo shir iyo waxaas ka hadlayso. Iran waxay lugta gashatay dagaal ay sharafteeda iyo qadiyadeeda ku difaacayso, waxayna u jihaysan tahay sidii ay u howlgali lahayd. Mareykanka waxaad moodaa madaxweynihiisa sida uu hadlayo in ay ka fog tahay mandiqa. haddii aniga aan gurigaaga soo weeraro oo aan dhibaato weyn gurigaaga ka geysto oo aan kula ballanmo soconaysaa, waxa weeye waxyaabo fara badan waxaa jira caqliga ka fog. tan kale oo ayadana khabirada militariga ee Mareykanka uu ka mid yahay Douglas McGregor oo buugtiisa aan dhowr goor aan dib u eegis ku samaynay, ninkan khabiirka ku ah arrimaha dhaqaalaha la taliyaha muddada dheer u ahaa qaramada midoobay Jeffrey Sachs, kulligood waxay qabaan Mareykanka haddii uu dagaal la galo Iran inuu noqon doonin play mataqaana walk in the park wax la yiraahdo, in uu socod ku marayo meel yaro jardiina ah. dagaal wuxuu noqon doonaa dagaal xanuun badan oo dhibaato weyn geysta, saameynna ku yeesha caalamka. annaga oran mayno ciddaas adkaan doonta iyo ciddaas laga adkaan doonaa, laakiin wuxuu noqon doonaa dagaal la isu adeegsado xirfado iyo aqoon iyo qaab ka duwan qaababkii loo dagaalami jiray. barnaamijka aan hadaayata xusay oo mar kale xusayana oo caaw baxay xalay baxay oo xalay baxayna waxa uu muujinayaa Iran in aynan dagaalamaynin dagaalkan loo yaqaano conventionalka ama dagaal caadi ah oo khidadaha reer galbeedka iyo waxaas aynan isticmaali doonin, inay isticmaali doonto dagaalka Xuutiyiinta mid u dhow oo ka sii daran kana saameynaya xoog badan. waa gabagabadii ku jirnaa, laakiin aan eego warar degdeg ah soo dhacay. waxaan leeyahay kumanayaal kun oo qof oo Israa'iiliin ah ayaa dibadda ku xaniban kadib markii Israa'iil gebi ahaanba ay joojisay duulimaadyadii diyaaradaha iyadoo cabsina ay jirto ah Iran inay weerar qaado. sidoo kale waxaa leeyahay telefishinkana 12 Israa'iil laga leeyahay wuxuu sheegayaa in la adkeeyay ammaanka saraakiisha Israa'iil ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku sugan baa la yiri. meel walba oo caalamka ka mid ahna waxaa la yiri Israa'iiliinta joogta ayaa amnigooda aad loo ilaalinayaa. waxaa isaguna hadlay goor dhaweyto wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil, wasiir gaashaandhigga ee Iran Nazir Zadeh wuxuu yiri Israa'iil waxay la kulmi doontaa jiritaankeeda wax halis gelin doona. waxaa isaguna hadlay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran, wuxuu leeyahay cashar adag ayaan bari doonaa Netanyahu. Iran waxay bari doontaa Netanyahu cashar adag, sidaas ayuu leeyahay mas-uulkaasi. waayahay Maxamed, aan kusoo gabagabayno haddii ay noqoto Iran inay Israa'iil kaliya ka agaato duqeynteeda, la filmayo dagaalka inuu balaarto, laakiin haddii ay weerarto saldhigyada Mareykanka markaas waa dagaal buuxa soo maaha. hore ayay mas-uuliyiinta Iran u baran qaadeen in Mareykanka uu la kuleeyahay. Mareykankana asaga afkiisa ka sheegtay wuxuu yiri Israa'iil ayaan difaacayaa, dagaalka ayuu qayb ka yahay. tan kale oo ayadana daawadayaasheen inay ogaadaan ay tahay waxa weeye Mareykanka il dhow ayaa muddo dheer lagu hayay dagaalkii Afghanistan. Mareykanka iyo wadamada reer Yurub oo dhan ayaa isugu tagay 20 sano ayuu socday, wax waa ka keeni waayeen. ilaa ay haddeertaan ayaa la isku haystaa Mareykanka gudihiisa sababaha keenay in Mareykanka uu ku jabo dagaalka Afghanistan. Xuutiyiinta waan ogeyn dagaalkii maamulkii hore ayaa dagaal bilaabay, kana waa dardargeliyay. waxa weeye Mareykanka dagaalkaasi guul waa ka keeni waayey. Iran oo muddo dheer isdiyaarinaysay oo agabka militariga ay soo saarto isku difaacda, iyana lahaan diyaarado waaweyn ay lahaan, laakiin gantaalada iyo droniska
waxay ka mid tahay dalalka caalamka ugu horeeya. waxaa laga yaabaa marka dagaalkani inuuna noqon Maraykanku waxay la tahay iyo xulafada saaxiibka la ah waxaana muuqata sida lagu joojiyay dagaalkan inuu adkaanayo ilaa iyo ay meel maraan. Maraykanku meel buu ku dhigay Iran nuclear ma qaadan karto, ma samaysan karto. Iran sidii lagula hadli lahaa iyo sida loo qaboojin lahaa ayaa adkaanaysa. waxaan muddo dheer ayaa laga baaqsanayay. midda kale Iran haddii ay falcelin yar samayso, saraakiishan yaryar iyo saanjiristayaashan laga dilay adduunka lagu fadeexeeyo, sharafteeda meel looga dhaco, Iran dowladnimadeeda ayaa khatar gelaysa. laakiin hore ayay usii qorshaysteen waxaan. Maraykanka marka muddo dheer ayuu ka shaqaynayay inuu Iran yaraysto, muddo dheer ayuu handadayay. hadda waxa weeye dagaalkii waxaa la joogaa meydaankii ayaa la joogaa, waana arkaynaa meeshuu ka shubto. daawadayaasha HBN-na waan la socodsiinaynaa waxyaabaha ugu dambeeya mar walba soo kordha xilli kasta iyo waqti kasta. waayahay gabagabada ku jirnaa waxaa la sheegayaa in qiimaha saliidda hadda uu kordhay ama shidaalka 10% weerarkaasi markuu dhacay. warka Trump baa iska soo daba dhacaya, wuxuu leeyahay mas'uuliyiin badan oo reer Iiraan ah ayaan mar dambe la arki doonin. wuxuu kula leeyahay Iiraan waa inay ku soo laabataa miiska wada hadalka. haddii Netanyahu uu ka diiday Iiraan ha weerarin, sidee Iiraan Trump ugu sheegi karaa jawaab bixinina Maxamed? waxay ku tusaysaa sida ay khabirada hadalka u dhigeen Trump iyo dhaqankiisa. gabar Trump uu adeer u yahay oo walaalkiisa u dhalay oo cilmi nafsiga baratay ama cilmiga nafshidka ama psychology-ga ayaa waxay ku tilmaantay in Trump uu yahay qof aan la saadaalin karaynin, qof waxa uu sheegayo saacadda soo socota aan la ogeyn. hooyada Trump dhashay ayaa mar hore ay wiilkeeda sifeynaysaa, ay tiri wiilkayga wiil la saadaalin karo ma aha, waxaan rajaynayaa wiilkayga inuu siyaasi noqon. islaantaas mar hore ayay dhimatay. laakiin waxaan kuu sheegayaa Trump oo doorashada kusoo galay, dagaal ayaan joojinayaa, adduunka ayaan nabadaynayaa, waxa uu bilaabay dagaal sida lagu joojiyay adkaan doonto. waa gartay. waayahay hadda ka hor halkan waxaan ka sii daynay toddobaad ka hor weerar Ukraine ay qaaday intay adeegsatay kuteenro saldhigyada Ruushka ay geysay, sidaas diyaaradaha daroonka ay ku kaceen. dadka Iiraaniyiinta baraha bulshada waxaa la isweydiinayaa maxaa loo maqli waayay diyaaradaha guuxooda haddii aysan ahayn diyaarado casri ah oo meel dheer intay tageen ama meel ka fog Iiraan ay gantaale ka soo rideen. laakiin guryaha rayidka oo la beegsaday oo sidaas oo kale loo beegsaday, guriga uusan dumin oo laakiin docda laga galay, ma dhici kartaa diyaaradahan daroonka laftigooda inay Iiraan gudaheeda ka soo kaceen Maxamed? ilaa ay haddeertaan waxaan hordhac weeye. laakiin wararka soo taraya waxa weeye diyaaradahan diyaarado waaweyn ma aha, diyaarado baalalle ma aha, diyaarado drones weeye. waa diyaaradii lagu qaarijiyey hogaamiyihii xafiiska siyaasadda Falastiiniyiinta ururka Xamaas. wararkan way soo tari doonaan. wararkan waa hordhac weeye. dagaalka sidiisa markuu bilowdana warar badan ayaa soo baxaya, laakiin Israa'iil iyo Maraykanka iyo hadda waxay sheeganayaan iyo xaqiiqada waa ka daba tegi doonaa. laakiin hadda sida muuqata Iiraan dharbaaxya ayaa gaartay, mas-uuliyiin sarsare ayaa la dilay. mana aha wax la sahlan karo. Iiraanna ma aha mid ay dib u dhaqi karto. weerarkan weerarkii ka horreeyey Iiraan jawaabteeda way ka gaabsatay markay aragtay weerarkii ay Israa'iil soo qaaday inuu aad iyo aad daciif u ahaa. haddana sida loo badinayo weerarkani waa weerar gaadma ah oo dadkaas rayidka ah dad daba socday ay kusoo hageen. ma aha weerar ay burbur weyn ku geysteen. waad aragtaa daarta in geeska laga duleelinayo. ma aha keliya halka daar aad aragtay, daaro badan oo waxaa jira baraha bulshada hadda dhex yaacaya. wararkan way soo tari doonaan. midda kale Israa'iil gantaalada ay qiyaasayso iyo waxa ay qiyaasayso iyo labadii weeraro hore Iiraan qaaday iyo waxa hadda soo socda waa kala duwan yihiin. waxa hadda soo socda waxa weeye saacadiiba in la soo rido kumanyaal gantaala ah. waxa weeye Israa'iil ma xamili karto.
gantaaladaas waxaa ku jira qaar guuxooda ka dheeraya, qaar waxaa ku jira diyaaradaha droniska ee adduunka ugu khatarsan qaar ka mid ah waxaa iskale Iran ayaa iskale oo qaar ay ka koobiyeysay Maraykanka. waxaa jira kuwa gaari kara fogaan aad u fog oo meelo fog gaari kara. waxaasoo dhan waa is soo tarayaan. wararkani waa warar hordhac weeye. wararka markay hordhac yihiinna waxa weeye xaqiiqada wax badan ayaa qarsoon. inta hadda la xaqiijiyay ayaan ku koobnaanaynaa oo dhinaca Iran laga xaqiijiyey oo ah in mas'uuliyiintaasi iyo sanjilisayaashaas inay dhinteen. weeraradana hadda sida muuqato ma aha weeraro waaweyn oo dhibaato weyn oo guryo waaweyn dumiyey maaha. waxa kaloo qarsoon oo dhanna gadaal ayay kasoo bixi doonaan. waxaan kusoo gabagabaynaynaa Trump warkiisii oo war kale uu ka soo kordhay. wuxuu leeyahay Maraykanku qayb kama ahayn duqeyntaasi mana ka qayb noqon doono. waxaa kaloo hadda soo dhacay war kaloo isna sheegaya Israa'iil inay filayso boqolaal gantaalaha nooca balastiga in Iran ay ku soo weerarto saacadaha soo socda sida uu leeyahay raadiyaha militariga Israa'iil. waayahay Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashana way mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan. waxaase naga xasuusa daawade si aad ula socoto wararkan degdeg ah iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno. haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan uga xirnayn ku soo biir si aysan kuu seegin macluumaadkan. aad baad u mahadsan tihiin. mar kale nabadgelyo. xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo keliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadaa ah kana soo shaqaynayay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda.